بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سأقول شيء وحنا أي عصدي رنتي شركة جاهل كنا كقبته أنا جو رنتي دون أي إن الشركة جاهل كسوق هذا لابد قضب ومن أي تهاي إن بلشة رأس ما إلا يجارهان قبل كساحة سجارة ولا وافتيميو إذا ولدت بدنا أي من مذو قلنا يعني مالكش قد كده قضب كلا بعدنا واحد مودا رنتي إن تفر بدنا يجوا كهلا يدي بقول إن كل ريان إن عد كله ومركا عن دب كلها يصير الشركة دهبشيل هذا مودا إن كتر ما مين فرقين هذا قضب عندنا افتيميو رنتي قضب كواد دي بودا وحندوني هنا كعدية إن كتشوا بقى في السؤال وما هيشيس كان نحن كيس وسوق كوبية وحكوا كتشوا بيا ساش أورا نسا فإذا ما لا هاي دي بيو ما لقيت كده وما حي فائدة كاس صدح وحكيت بيا خلد عين كانوا كره هذين ما أنت قلنا دي بيو ما أنت ما سيدتك قالوا أركان أين الدينه خلادات كتاريخ ضوء أجنو مثل ميدي ما رحلي استحسن مدينة كشباب الدنيا هالشيء كده كده أدبو كومية وحكوا كومية صدح قيبض وقد كده أو كلا هندلين كأي مالي سيرفيسكا ومالي سيرفيسكا اللي موريج واحد اللي موريجو كليا سودتشنتا يا رست يا إلا سمي فريزون يو هالشيء بايلاي ترى أو كده هي إمارات كيس سمالا صح قلبك كومية كده haddaan mid uba gaar u eego qaybta handalika markay dekada marka la wareego ee ku saabsan rista iyo dishida waxa ka soo bixi doona hawsha aan soo tixi doona oo aan ku cadeynayo qodobadaas inay yihiin qodobada qarankan faa'iido u leh oo ka jawaabaysa su'aasha labaad haddii dekada ay dib u la wareegto oo handalinka la wareegto waxay maal gelin doontaa saaro cadeysay muddada ay joogto 442 milyan oo dollar dekadeen waxay u baahan tahay in la jaan qaado dekadaha gobolka in la horumariyo oo aanay ka harin saddex waxay u baahan tahay haddii dekada adigu aad maal gelin weydo barbara cid kale ayaa ku maal gelin doonta dekadaha haraha ka xiga dabada dekadaada waa laga guuraya saddex waxa la abuuri doonaa terminal cusub oo containerska oo ah casrigan imika jooga qaabka loo qaado cargo waxaan heli doonaa shaqaale ka shaqeeya inta imika ka shaqeysa in ka badan marka capacity-geeda lagu daro marka hore 700 mitir tadama lagu daro 700 mitir oo kale taas waxay keeni doontaa in ay dadka ay ka shaqeeyaan ka bataan waliba si Ethiopia ku balan qaaday in 100% kala soo dekada waxaan say qodobada marka eegto waa qodobo leh dan aynu leenahay soo gaalahay waxa ka hadlay free zone-ku waa meel intaas oo kilomitir ah oo square ah oo la dhigayo alaab aan cashuurayn qiimahooda naas yahay taasoo keeni doonta xataa lamaanaha isku guursan doona boorama ama burco ama lascaanood inay sariirta iyo talaagada ka soo doonan doonaan friisiga bara bilateralka heshiiska laba wadan wuxuu faa'iido ku leeyahay waxaan yeelanay saaxiib dhaqaaliye saaxiib sama yeelana waxa kaloo ay noqonaysaa in hotel 5 star insan inay dhammaan dhinacyada adeega oo xagga dalxiiska iyo xagga kaabayaasha dhaqaalaha inta inaad ka kaashano wadanka Imaaraadka ugu dambeyntii xataa gaari doonta in shaqaalaha labor-ka Soomaaliland ay u shaqeeyay karaan wadanka Imaaraadka intaas waxa uu arkaa inay tahay faa'iido idan la helayo taariikhan Soomaaliland haddii heshiiska faanta mustaqbalka ka faa'iideysan weydo waxay ka dhignaan doontaa dhowr iyo konton markii Ingiriisku yiri waxaan idin sameeyay jaamacad jaamacadda aynu diinay qaar inaga mid ay diinay yiraahdeen nalku gaaleynaya imaan jaamacadda tahay jaamacadda Makerere University ee Kampala ku taala waxa xornimadeena iyo kale ma kuna sagaab wixii ka qaadanay inagoon isubsan oo caadafeen hayso been xamar ku beernay وخات كان قلبها وكسي درن ما عنده ولا نيروبي تجني كلا هذا عبد الله تبليغي وأنا أهني قولك حاجة شو ده كان عسوي نيروبي كان وح إيش كي وهذا اللي يقانو السيلو إذا كني كنت على إن ده كسوة شيء إيش الكود قبله وقويين إذا كان شيء ودوري كنت كيلو أفرت كاي تكان حسيا شيء مركي ودك حرب هذا قاطي أيها جو مكنيات أو مدحوم بيقولون نقول حكولي هل كان دقة سكاس كور وصل ما بين بين وين سنة وحيوان أنت كان دعودن
ما نجا نك محوها مدو سواحلي ودوني إنه كانوا جميس ما أحرش يا جماعة ما أنت يلهين ما أنت حنقول لهم مدن ميل دجان ولا يقانون إمبيله ما أنت وحنا حنقول لهم ضد كينيا مجالك كسبان تجنا وكفر سنة وشاس ما أنت هداف هذا حكى كريسة إن التاريخ أيوته يسمر والبخارات كذلك رئيس ما جلان من مدو ومركز دمار كشليا وحضرنا أنا سوقته معناه دويد مدحونا ذلك ماليزيا لبعض دارين يتون تاوس كيالا مقالة كوالالمبور كيالا أيوه حكى كري كمبني تشاينيسا والله قبصدي وحكى شيء كي إن لبعض دارين مرنا أنا يقولين لكن هذا العجن السنية ساس أوجد دمان كابياش دقال مقالة بربرة وقال سحق فارا ماتا وحين وادد ووحر إنه الكسمي إنه الكتري ما أنتنا وحن دوني إن كسعد أو بيانا وقشيغو muxuuha in aynu u baahanahay maalgelinta inay shaqeyso qof walbana gurigiisa ku soo gaari doonta hadduu u sabro muddo waxa ka cadeynaya shirkadda Caterpillar oo maandhood gobolka saaxati ma xafiis ka furnaysay oo shaqaale cusub qaadan doonta bulkii waxa ka iibsatay muwaadin u dhashay gobolka saaxati muwaadinkaasi waxa laga sitay $300,000 bulkiisa laga sitay imika weydka arkaya hawlaha fara badan ee berbere yaagreeka ka socda هذا تاكل سوق الدو واحد دوني مير افتمية شركة دهبشيل وشركات قناعسي أو إن بدن سو شقينيسي سماه لان وحبة كقبتين دي بيولنا وشركات عصب ويمكن ما لقينا كسمانة سا ما البرع واحد أحمري هالشيس ولا شقينات أو كوسا بس حق أذيقة أي فلوس وحياي إن أكاونتس أوفرته ضدك شقالة سنين كشقاله ومشاهر كيسة بيش ديرة كيد وقصة ضمته أكاونت كله دهبشيل أنا قدامك جامعة تقول لي سير برا الشقالة هيجو وحن العقد كسية سلامة بنك بالكستا وحن كدهم تان أكاونت كود كذا سلام بنك وأذيك أنا في الشقالة سي أنا مات العقد أنا وشوفوا قادم ومحافظ كانوا منه أذيك النوع عاصف كلها أي شيء دهبشيل أي فلوسه وحكوا أكاونت فرتي دي بيول إن العقد كوكستا مركا يجوا أركان دي بيول أركان إن هنا الشركة وين أو جناس أو بانله بس أكنس ما حاجة كعدينية هي أذيك كده أفضليسي دي بوده إن أنا أحيانا مرنبا وحديد أو لجود وسي حقوق تجارة أو مركا أي كده بشيء أمك عقارتي مش أنا حبيبتي أنا شيء بطلق عدينية واحد دون يا مكا إن ذاتك قار وكوب لابي أفلقادية عي أو كحيومانيا شرفت يا كلام هذا بشيء أي كأدينا إن الدهبشيل إلى دي بي وإلى طاي يعني مرة أنا هنا لوش كود ولكن أديك كل شيء ليهن تاسنا دوني تانا كان وحركة أنا كيف تبي واقبح والسلام عليكم مقعي عبد الرحمن محمد عيد مسعود تلفزيون حساب تيفي اللي من هديان سؤال بويديو waxa mudooyinkii u dambeeyay kor u kacay sicir bararka dollarka saamiyada suuqa maadaama tahay xildhibaan dhaqaalayahan miyaan la oran karin saameyn ayay ku yeelan kartaa lacagta ay DB World dhiganayso ee adag dahabshiil ee dalka dibadiisa uga baxaysa sida iyada arintaas oo aragta هذا أرتك كسابسان سعر بركة وموضوع جارة أو أباهن دراسة ديس إما كان جودة أن كمل هاي برلمان جودة إلى أنت إذا بقى كانت تقرك وحنا لكونا شركات ترسم لكونا شركات دهبشيل وإحنا وجدنا برنامج كنا وجدنا وحكنا برنامج وجدنا بنك لكونا وشركات صدق جسودة أو أباهن إلا بارس سعر بركة محاكيني يسيدها الله بابية runtii arintaas waxaan u maaynayaa daqiiqad yar ka gaarsi karo waxa u baahan tahay daraasad la baaro halkay ka jirta oo zaadku muxuu intuu raad ku leeyahay xawaaladu intay raad ku leeyihiin muxuu lacagta xoolaha imka aniga naga goday lacagta raad ku leeyahay ay dadka ganacsatada ah ee wax walba ku saleeyay dollar intay raad ku leeyihiin waa imka magaalada Nairobi oo hadda aan ka imi dukaamada markaad gasho isagoo shilinka muxuu halka dollar ee shilinka Kenya uu yahay 200 shilin yahay أي واحد لو قرأ حتى كسر كقرية هاي أفرتم كن أما كنتم كن أما بقولكم أما لا بقولكم كقرية وشين كيناني دو كقرية ما يوصل دلكم قرأ أفضل لكم كقرأ أنت أو كن وستبادئة أو شين كيناني إني كنا مك قفك ويا مك بيجحكونا يلا بدو بقول يستوي قرق يسكرنا وحاصل بقول بيت الدراسية للصوص صاروا قاب كيلو قبل حناش عبرك واي حل بانين واحد تيمك DB World بس كهذا الشيء
DB weel horaaba loogu kala tagay arrintan saldhigga military xilligan gudoomiyaha baarlamaanka oo ka cabanayso jug lagu marsiiyay adigu sideedaba aragtay Soomaaliland u baahantay iyo berberi sinaan u baahnayn anigu waxaan ahay anigu gacantaan u taagay waxaan mar kale ummadda reer Soomaaliland u cadeynaya gobolka saaxilna u cadeynaya in saldhig military oo berberi laga sameeyaa faa'iido inoo tiri mooyaan in wax dhibaato aynu galeen waayo shay kasta waxay leeyihiin dhibaato khasaaso walba way leeyihiin laakiin faa'iido inoo leeyahay ka badan wuxuu khasaaran soo gaarsiin karo haddaan ka jawaabo arrinta saldhigga kow horta saldhig muxuu yahay saldhig waa meel in kilomitir kooban oo ciidamada ajnabi la dejiyo laba waa saldhiggu faa'iido ku leeyahay haa saldhig faa'iido ku leeyahay wargeyska loo yaqaano Gulf News ee ka soo baxa waddanka Imaaraadka adduunka dhan wuxuu si cad u cadeeyay in saldhigga berbera heshiiska ku jiro inuu ku jiro in ciidamada Soomaaliland lagu tababaro hubna lagu siiyo yaadar haddii hubna in la siinay cid kale tababarayo dhaqaale naga soo galaya ee ka biyaha u geynaya ka raashika u geynaya ka shidaalka u geynaya dumarka xataa dharka u maydhaya dhammaantood shaqo keenaya waxa kaloo ka sii daran haddii 400 ama 300 nima yimaadaan oo maanta shimaxa ay berbera ku soo darana maxaad ka iibinaysaa wallahi waxaad ka iibinaysaa wallahi alaab ka wadiisnaan waxaan qabaa mar walba haddii maxaa kale haddii ba aan saldhigga faa'iido lahayn maxay uga qaylinaysaa Muqdisho Djibouti waxay uga qaylinayaan cadowgaaga muxuu u arkaa in dhibaato ugu tahay waxa weeye waxaan u arkaa anigu inay tahay faa'iido u soo korodhay Soomaaliland way xildhibaan saldhiggii military waxaad ku sheegtay horumarin iyo investment dalkii la gelinayo waan la yaqaan caalamka saldhig military waxa uu leeyahay khasaare iyo faa'iidaba dekada berbera wad ka hadashay waxa tiri waa mashruuc ay u baahan DB Weel inay maal geliso okay dalka dawladda baa u talisa wixii ay la timaado shuruuc baa la mariyaa mar walba shuruucdii la mariyay baarlamaanka jujuub baa lagu mariyaa mar walba dagaal baa ka dhaca lama dhageysto hatta dadkii deegaankan u dhashay xaq miyaan u lahayn in arrimaha noocaas marka dawladdu ay galayso inay wax kala socodsiiso oo ay talada wax ku yeeshaan horta arrinta ku saabsan gobolka in dadka jooga ay runtii la dhageysto oo mid ku jirta laakiin waxaan qabaa gobolka laftiisa isaga kala qaybsan maanta gobolka sheegaysa dadna way taageersan yihiin dadna ma taageersan dadka waxay arrimaha imika mid kale golihii wakiiladu labadii jeerba wuxuu dawladda wuxuu u ansixiyay in heshiisyada caynkaas gali karaan oo golihii wakiilada ah oo sharci jita marka anigu uma arko dalkan si u dhaqaaqo u horumaro waxaan u baahanahay inaan talaabooyin khatar ku jira inaan qaadno haddii ka hadii dalkan aan nahno iyo meel ha fadhiyo de ma shaqayn karino inagoo bartaa fadhina ayay nolol ku imanaya oo faqashay noogu imanaysa cid kale cadow noogu imanaysa wuxuu baahan yahay dalkan inuu hore u dhaqaaqo wadooyin khatar leh oo qodxada la qaado oo laga shaqaysiyo 1 milyan oo dhalinyaro soo kacaysa haddii aan shaqo u abuurin xagan geeyna boqolaadka ku ee ka soo baxay jaamacadaha haddii shaqo loo abuuro oo la jaayin xagee tagaya waxaan u baahanahay inaan talaabooyin qaadno whatever the cost si markaa dalkan u horumaro berbera waxay u baahan tahay si magaalo shaqaynaysa u noqoto in la maalgeliyo oo qanimadeeda lagu maalgeliyo si aan dadka berbera u noqdaan gobol shaqaynaya oo gobol kala mata oo u noqoto meesha commercial city mustaqbaleed way